qisada aan doonayo inaan idinla wadaago waa qiso aad iyo aad u macaan tilmaamaysana ragga iyo mas'uuliyaadkooda qaarkood ragga qaarba aad iyo aad u sabar badan qisadan ayada ahan soo wado waa qiso dhinac marka laga fiiriyo duruus badan baa ku jirta dhinac waa qiso aad iyo aad u macaan waa qiso gaaban waana qiso dheer hadba qaabka loo dhiga ayay ku xidhan tahay qisaduna sidan soo socota ayay u bilaabatay ragga iyo dumarka bini'aadamku wuu isqabtaa labada isqabtaa gurigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaaba ka nabadgeli waayey khilaaf waana tabiicatul bashar kullu ibn aadama khata wa ma'a dhalika wax kasto dhaca waxa lagaga gudbaa sabar iyo dulqaad ayaa lagaga gudbaa qisadani waxay u dhacday nin iyo xaas isqaba ayaa maalin maalmaha kamida waxay u soo fariisteen qada ayay u soo fariisteen wal ajiib qada aad iyo aad u macaan ayay hooyadu maalinta diyaarisay carruurtii oo fasax ah ayaa guriga iskugu imaaday waa goor duhura guriga ayaa la joogaa gurigu waa guri yaani villa amala waa guri hawadu ay ku furanto aad iyo aad u macaan waa maal aad iyo aad u qurux badan waxay ku qurux badan tahay oo sii qurxinaya reerkii ayaa wada qadaynaya waana mid ugu qiimo badan oo aad iyo aad ka ugu wanaagsan u fiican mar alla markii qadada loo fadhiistay wax ku dhacay lama garan haye gabadhu waxay soo gocotay lama garan haye gabadhii si ayay u cadhootay wax ka cadhaysiiyay aad looma garanayo laga yaabaa wax hore inuu ahaa si kastaba ha noqotee ficilka ay gabadhu samaysay iyo ninku jawaabtii uu ka bixiyey weeye darsiga muhiimka ah ee inaan fahamna la doonayo waxay u dhacday gabadhii waxay samaysay waxay aaday talaagada ayay aaday 2 litir oo caano ah ama 1 litir oo caano ah ayay talaagada ay ka soo bixisay wal ajiib carruurtii oo meeshan fadhida qadadina loo fadhiyo guriga dhexdiisa iyo fadhigiisa la joogo jawigu aad u qurux badan yahay aad iyo aadna loo faraxsan yahay aad garanaysaan ayadoo lala qadaynaya aabe carruurtu ay la qadaynayaan waa farxad gooni ah hooyadiina ay halkan joogtay u adeegayso hooyadu maxay samaysay waxa laga yaabaa cimrigaaga oo dheeraaday geel dhalaayana waa ku tusaaye inaadan marna ku fikirin qisadan ayada ah soo socota ee doonaya maanta inaan kula wadaago hooyadii waxay samaysay caanihii ay liitarka caanaha ama 2 liitar ay ka soo bixisay talaagada ay ka soo bixisay ayaa odaygii oo fadhiya labiskiisana qaba meeshii cuntada lagu cunayayna roogeedii u yaallo carruurtuna ay ka soo horjeedaan ayay bilowday inay madaxa ay kaga shubto ilaa ay kaga dhammayso suuradaas ayada ah waqcadaas ayada ah dhacdadaas ayada ah mar waxaad fiirisaa carruurtii mar waxaad fiirisaa aabihii fiiri mar waxaad fiirisaa ficilka naftiisa fiiri say wax u dhaceen maxaad adigu samayn lahayd haddii aad aabba tahay oo hooyadu ay arrintaas samayso laakiin kama wado hooyadu inay samayso arrinka inay wanaagsan tahay la marna lama ogolo carruurta oo joogta afcaasha noocaas oo kale in la sameeyo waayo waa tarbiya xumo weeye laakiin hadday ku qabsato oo ay dhacdo maxaad samayn lahayd qisadani ujeeddadeeda waxaan oga jeednaa bal waxaad samayn lahayd arrintan iyo arrin lamida hadday dhici lahayd aabba haddaad tahay madaxweynihii guriga aad tahay mas'uulkii guriga aad tahay الرجال قوامون وألا يري سبحانه وتعالى waxaad samayn lahayd ayaa la doonayaa in aad si fiican u fahamto maxaa dhacay marka arinta balaan qisada meeshan quruxda badan ee biyaha ah aan ila daawada say qisadu si qurux badan idin ku degto biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ayuha al-ahibbatu fillah ninka asaga ah waa iska fadhiyay qisadii baan idin waday waa iska fadhiyay illa litarkii ama 2 litir ee caanaha ah lagu dhameeyo muxuu sameeyay ninka baad u maleynaysaan muxuu ku qanciyay carruurtiisa baad u maleynaysaan dhibaatada qabsatay muxuu kaga baxay baad u maleynaysaan ficlan dhibaatadii way dhamaatay ma aha wax layga sheekaynayo waa waxaan hor fadhiistay ma aha sheeko la soo guuriyay oo internetka lagu qoray oo qiila waqaala ama aha waa wax aniga aan arkay oo mataqaan hor fadhiistay weeye waxa dhacay baan rabaa inaad idin dhamaystiro ninkii carruurta ayuu eegay carruurta ayuu fiiriyay kadib ayuu wuxuu yiri aabe maxaad u maleynaysaan arrintan hooyo ay samaysay maanta meeqa sanad isqablaad u maleynaysaan anigii hooyo waa sanad guuradaanadii dhowr iyo 20aad 25aad sida daraadeed annagu haddaanu nahay Soomaalida qofka aanu doonayno inaan ugaas ka dhigno qofka aan doonayno inaan darajo sare siino qofka aan doonayno inaan boqor ka dhigno caana ayaa lagu shubaa waana xaqiiqo Soomaalidu arrin jirta weeye in qofka mataqaana la boqor iyo caana lagu shubo hooyadu marka waxay u jeeday idinka oo jooga fadhigana fadhiya qadaynayo cunto cunaya
inay idin tusto idiina sheegto inaan maanta laga bilaabo boqorkii reerka ahay nin wanaagsanna aan ahay sidaa daraad bay hooyo caana iigu shubtay sida oo la socda qisadaasi waxay dhammaystirtay waxay meesha ka saartay murugadii carruurta yaryarka ahayd waxayna isku dhowaysay reerka iyo isku soo dhowaysay laba qodob baan qisada ooga baxayaa ficilka noocaasa waa ficil xun in la sameeyo carruurta dhexdeedana ma habboono arrinka ayaan lagu degdegin dhinaca kale aad baan ugu mahadcelinayaa xilmiga iyo dulqaadka iyo sabarka iyo xigmadda ninkaasi oo carruurtiisa kula dhaqmay reerkiisana arrinta ay halkaasi ay kaga dhammaatay aad baan idiin jeclahay laga faa'iidayso qisaska noocan oo kale ah sabar iyo dulqaadna hala muujiyo weliba ragga ifur hadday xaaskaa ku dhahdo waa ifahan meel ku qoro intaan kaga kulmayna xalaqo kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu